Saacadihii aynu ka soo gudubnay waxaa baraha bulshada aad ugu xoogeystay muuqaal si aada loo faafiyey kaasi oo ka soo muuqday wiil Soomaaliyeed oo isagu su'aal gelinaya qof markaasi lagu tilmaami karo waxa uu leeyahay suuradda dumarka isla markaana lagu magacaabo Shukri. Haddaba wiilkaasi Soomaaliyeed ee markaasi la hadlaya isla markaana ay isla saarnaayeen qaybta live-ka Instagram-ka gabadhan Shukri lagu magacaabo ayaa waxa uu su'aalo dhowr ah weydiiyey. Inta badan dadka ay si gaar ah toosh ugu ifiyeen in qofkaasi uu la hadlaya mar uu soo ahaan jiray qof raga. Haddaba wiilkan ayaa waxa uu sheegay in uu yaqaano shakhsiyadda qofkaasi dumarka imika isku sheegaya isla markaana horey loo oran jiray aan idhaahdee Shucayb oo uu ahaa qof jinsiyadda ragga ee qaabilsan hase yeeshee imika isku ekeysiiyey dumarka. Arrinkan ayaa baraha bulshada aad u qabsaday, dad badanna siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen, iyadoo tani ay calaamad u tahay aakhir zamanka iyo sidoo kale in dadkeena Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku nool intooda badan in ay qaadanayaan dhaqanka reer galbeedka, sidoo kalena ay iyagu ahaayeen dadka jinsigooda bedelaya si la mid ah dadka kale u ololeeyo xuquuqda dadka aanu isku jinsiga ahayn, dadka isku jinsiga ah ee markaasi iyagu lamaana iska dhiganaya ama xidhiidh u dhex maraya. Arrimahan ayaa waxay ahaayeen kuwo markaasi si toos ah dadku ay aad u dhaliilayeen, qaarkoodna la yaab, fajac iyo sidoo kale ama kaag ay ku noqotay. Mana ahan wax cusub maxaa yeelay TikTok-ga waxaa ku jira dhowr qofood oo had iyo jeeraale dadweynaha ay markaasi si toos ah muuqaaladooda ay ula socdaan isla markaana qaarkood ay ku taxayeen, hase yeeshee dadkaasi intooda badan ay yihiin dad sameynaya dhaqan khilaafaya diinteena suuban ee Islaamka, isla markaana intooda badanba ay yihiin dad intooda badan dhaqankoodii u doorsamay, dad markaasi qaatay dhaqanka dadka Kirishtaanka isla markaana ku dhaqmaya waxyaabaha qowmuluudka loo yaqaano, iyagu intooda badan ay ku lug yeelanayeen. Run ahaantii waa arrin aad u xanuun badan. Waalidiin badan oo caalamka ku nool ayaana caruurtoodii xakameyn waayey muddooyinka ugu dambeeyey, waxaana soo food saartay cabsi iyo sidoo kale xaalad argagax ah iyagoo ka qoomameeyey dhibaatada ilmahoodu dhexda ay kaga jiraan oo aynan wax kaga qaban karin maadaama dhul gaaleed la joogo ama wadamada reer galbeedku lagu nool yahay. Waalid badan ayaa la sheegay in ay markaasi danta ku qasabtay in ay ka quustaan ilmahoodii isla markaana aysan dib dambe u sheegan kadib markii caruurtoodu ay qaadeen tallaabo aad u foolxun isla markaana ay ku dhaqaaqeen dhaqamo aad u foolxun oo dhaqamada reer galbeedka iyo waxyaabaha markaasi qowmuluudnimada qaybta ka ah. Mana ahan wax cusub maxaa yeelay TikTok-ga marka la eego tirada dadka Soomaaliyeed ee muddooyinka ugu dambeeyey markaasi ka mid ah dadka lagu tiriyo in ay yihiin kuwa LGBT-ga afka qalaad lagu yiraahdo oo ah markaasi dadka inta badan qowmuluudka haddii ay noqon lahayd laba qof oo markaasi isku jinsi ah isla markaana xiriir sameynaya, haddii ay noqon lahayd laba gabdhood ama laba hablood iyo sidoo kale laba wiil ama waxyaabo noocaas oo kale ah. Arrimahan oo dood iyo mooshinba imika ka taagan Soomaaliya qayb ka tahayba dadka xuquuqda noocaas oo kale uu ilaaliyo aadna markaasi ugu ololeeyo. Haddaba waxaad arkaysaa wiilal da-yar oo TikTok adeegsanaya balse intooda badan aad looga shakeysan yahay ama lagu tuhumayo inay qayb ka yihiin kooxahaasi afka qalaad lagu yiraahdo LGBTQ. aadna sabankan waa ay u soo bateen meel walba oo ay dunida ka joogaan. Hay-adaha dadka maalgeliya xuquuqdooda aad u ilaaliya isla markaana difaacana aad ayay ugu badan yihiin caalamka siiba dalalka reer galbeedka marka la eego. Wiilkan imika ka hadlaya qofkaasi shakhsiyadiisa oo uu leeyahay iyadu waxay isku tilmaamaysaa inay tahay gabar, waxaadna moodaa in ay aad markaasi u diidan tahay hadallada wiilkaasi uu sheegaya ah in uu garanayo shakhsiyan in la oran jiray Shucayb oo kale oo wiil ay ahayd gabar ay noqotay, xubnaha dumarka ay samaysatay oo wax walba oo ka muuqda ay yihiin wax faalis ah oo aysan ahayn sida Alle subxaanahu wa tacaala uu abuuray ama ay u dhalatay, balse iyadoo ay qaaday waddadaasi qowmuluudnimada, iyaduna ay diidan tahay oo ay leedahay hadalladaadu waa boring, waa lagu cajisaa, waxyaabaha aad ku hadlayso nuxur ma laha oo been iyo meel abaal ayaad sheegaysaa bay tiri.
laakiin waa xaqiiqda jirta run ahaantii ummadda Soomaaliyeed dhibka waayadan dambe ay inta badan la daala dhacaysay ay qayb ka ahayd culummadu qaybaha kala duwan ee bulshada waxgaradka waxaanu inta badan usoo jeedinaynaa in ay isku dayaan in ummadda ay ka wacyigeliyaan in sidoo kale subxaana watacaala ay u weydiiyaan ummad Soomaaliyeed inuu hanuuniyo dadkeedii jiilkeedii sii cirib tirmaya qaarkood qaadanaya dhaqamada dadka kale waxyaabaha aanu indhaha laga dadan karin ee foosha xun ee muddooyinka ugu dambeeyay aada u soo badanaya waa xanuun run ahaantii aan la qiyaasi karin muddooyinka ugu dambeeyana waxay qayb ka ahayd waxyaabaha sida aadka dadku ay ula soconayeen sida social media tiktok u yimid oo kale waxyaabo badan ay iska soo daba dhacay maalinbu wax kaa yaabiyo unba halkaasi ku arkaysay haddee dadkii caqligu saaxiibka ahaa dad badan way jiraan oo aanu la socon waxyaabaha noocaasi laakiin inagu waxaanu caadeysanay inaynu taageerno inaynu waqti gelino inaynu la soconno dadkan aynu ognahay in diinteenna ay u gafeen innaga ay meel ka dhac ay ku yihiin yiraahdo jinsiyaddeena soomaalinimo marka la yiraahdo inay yihiin dad markaasi aynu isku af isku dhaqan isku diinnahay laakiinse iyagu bataatanba ay ka baxeen diintii wanaagsaneed isla markaana ay noqdeen dad markaasi qoomuluud ah wax aanu markaasi wanaagsaneen adduuniya akhraba iyagu ay u bareereen in naftoodu ay geliyaan way jiraan dad badan oo ku taxan dadkaasi waxaan leenahay bal ummaddaasi aad sii dhiirigelinaysaan aad ka waaleysaan fadlan ha isku dayana inaad sii dhiirigelisaan in aad taageero u muujisaan in aad laygaraysaan muuqaaladooda in aad follow dhahdaan in views badan aad siisaan in social mediaha aad kusii dhiirigelisaan inaad daawataan maadaama iyagu afkaar kale ay wataan waddan kalena ay joogaan shisheeye laga yaaba hay-ado u dhaqaaqaaqa way jiraan dalkeedii ay joogaan laga yaabo in dhibaato ay soo gaari lahayd waana wax aada u foolxun muuqaalkan ma doonaya inaan kusii dheeraado laakiin videogaasi waan filayaa in aada soo daabateen wiilkan Soomaaliyeed ee caddeynaya kashifaya qofkan inanta isku ekeysiiyey ama gabadha isu ekeysiiyey la sheegay in dabin badan ay u dhigtay rag badan oo Soomaaliyeed qaarkood laga yaabo qarash in ay geliyeen qaarkood hasaaba ay la sameeyeen balse xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ay tahay in qofkani asalkiisa uu ahaa qof nin ah balse dumar iska dhigay from waxaa laleeyahay Shucayb to Shukri Shucayb baa la oran jiray Shukri ayay imika noqotay waxaa jiray wiil kaloo la oran jiray Fuaad imika Samsam ayuu la baxay waa gabar muuqaalkiisa xataa gabar ayuu bataatanba imika shabaha waana waxa social media aadka ugu soo batay subscribe saar channelkan haddii tay markay koobaad isku soo biiraysa like garee muuqaalkan la wadaaga saxaabtiina waan idinkaga mahadcelinaynaa taageeradiina aad baad u mahadsantahay